بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقتي اللباد برنامج كأني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يوم ارتدينا أبوها سؤالها برشادة وكجت جوابي شيخنا شيخ محمد عبد أمل حفظه الله. سؤال صدح طبنات fadhigeena caawa wuxuu ka bilaabmayaa su-aasha 13aad. saailku waxa uu leeyahay sheekhana, mararka qaar waxaan aragnaa madaxda islaamka oo salaamaya madax kale oo gaalo ah. marka ma bannaan tahay in la salaamo? maxayse diintu ka qabtaa nin ama naag ku doonaha noqdo qofkaasi? بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سؤال جوابتي waxa weeye hadii salaantu ay tahay luqada kale ama salaanta sharciga aysan ahayn, assalaamu calaykum hadaysan ahayn, dhib ma laha. قال سلام مسلم سلام تاس واسك عادي ويتاس أما سيطة هيدا أما إسكورن ده أما هو هيو ده أما برياكو ده ما في مشكلة. تاس هي ذا دمرة هذا الكمجر. لكن هذه هاي سلام تلقى الله يوم يبدأ إسلام السلام عليكم قال هذا مرلو سلام كرا ومسألة خلافية واحد. حديث باشرة هي لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. يهود هي النصارى سلامها كب الله بنا. حديث كمسلم باوريي إلا نكوشرته وأن اللي هذا سهيل بن أبي صالح يلقوني النقضي wuxuu la gooni noqdana muxaddisiinta in badan waxay leeyihiin waa daciif oo ma sugnay leeyahay. laakiin lafdi kale oo xadiid ku yimid saxaabo dhowr laga wariyay, lafdigaasina waxa weeye nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu saxaabada ku yiri inni raakibun ghadan ila al-yahud, bari yahuud baan gaadiid u fuulaya oo aadaya xaggeeda, fala tabda'uhum bis-salam سلامكم بالله. فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. هذي سيدي سلامان أيوه وعليكم أقول جوابا. إلى صدح صحابة أبا لفظك على الجوهر يا حديثك. لفظك أسمرك وحوت الماما يا سبب لها حديثك. صوبتنا وحي أهيد. النبي صلى الله عليه وسلم يهود بوكدوا لها يوكو السعودية. الإمام أبو إسحاق وحل إسحاق المراهوية وحليه هي صلاتها كوب الله بين النبي ومركوليه وحال جوضها علشان هداد سلامته قالك أمان أو كلوه سيدي هذه هو اللي بتقوليه أمان سي أو كلوه. مرك النبي قد قال بو صعدا كو دقالك بو صعدا هذه صلاة صحابته كوب الله بان وأمان سين والنبي بتقوليه سين واحد wixii loo socday bay ka hor iimaanaysaa. arinka waxa sida uu rajaxay sidoo kale ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah wa xadiidka sababtaas ayuu ku yimid macnahaasana laga wadaa. laakiin hadii uusan ayna ahlu harbi ahayn oo gaalada la salaamayo ayna markaa muslimiinta dagaalka la dhaxayn oo dhimmiyiinta iyo mucaahadiinta iyo musta'miniinta kuwa la yiraahdo haday yihiin in assalaamu calaykum la dhihi karayo in badan oo ka mid ah culimadii salafka ayaa qaba, bal saxaabadii qaar ka mid ah ku tagay sida Abdullah ibn Mas'ud, Abu Umama al-Bahili, Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Abbas iyo taabiciin fara badan ayaa waxay mareen in la salaami karo assalaamu calaykum la dhihi karayo. xadiidkaana macnahaasay u yeeleen oo ay ku qaydeen. وعيد دليشدين
gaar waxay ku qaydayaan haddii aad gaalka u baahi ka aad dan ka yeelato qaarna mutlaqan bay ka dhigayaan waxay u daliishanayaan dhowr aayadood aayadda koobaad waa aayadda fi suurati almumtaxina ku jirta laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum wa tuqsituu ilayh gaalada aan idinla dagaalamaynin ilaahay idinma diidayo inaad cadaalad u samaysaan oo wanaag u samaysaan salaamtay gelinayaan waxay qaarkood ay daliishanayaan aayadda qur-aanka ee fi suurati الnisaa ku jirta waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha cumuumkeeday daliishanayaan waxaana ka mida sida qolyaha daliishaday alimaam ibnu اlqayim fii axkaami ahli اdima ayuu daliishaday wuxuuse leeyahay haddii salaanta gaalku ku salaamay aada hubto inay salaantii islaamka tahay oo uusan wax kuu qarinin oo assalaamu calaykum ku yidhaah wacalaykum assalaam waad dhihi kartaa markaa cumuumka aayaddaasay daliishanayaan waxay culimmada qaarkood u daliishadeen nebiga sal alla alay wasalam waa kii lagu yidhi fasfax canhum waqul salaamun fasawfa yaclamuun fasfax canhum waqul salaam sidaa waxaa u daliishanaya aayaddaasi cumar bn cabdilcasiis baa u daliishaday cali bn cabdillaahi albaariqi baa u daliishaday kamaa fii musanafi cabdirazaq halkaa marka waxaa ka muuqataa masaladu waa masale khilaafiyaa wax nas ah oo cad oo xadiidkaasi macnihiisa sida ay culimmadu u fasireen aan ahayn oo ku cad inaan la salaami karinna ma uu jiro sidaas daraaddeed salaantu dhib ma laha waxaa dooranaya madhabka isagoo culimmada mucaasiriinta ka mid ah sheekh alalbani caleyh raxmat ullah oo intuu soo guuriyo nusuustaasi buu sidaasi u marayaa iyo keyrkiiba laakiin mid baa u baahan in lagu baraarugo haddii ay noqoto inaad ku salaanto assalaamu calaykum lagu dari maayo waraxmatullaahi lagu dari maayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi la raacin maayo haddaad salaanta ka qaadaysana oo madhabkaa la marana wacalaykum assalaam baad ku gaabsanaysaa laakiin waraxmatullaahi raacin maysa laanna naxariistu waxay khaas ku tahay muslimiintay khaas ku tahay iyo dadka mu'miniinta masaladaasi marka warkeedu inahaas tafaasiil badan baa ku jira laakiin intaasaan ka dhahaynaa wallahu aclam jasaaka allahu khayran baarak allahu fiik saa'ilka afar tobnaad waxa uu leeyahay sheekhana waxaan ku tukaday shay aan daahir ahayn aniga oo aan ogeyn salaadaas ma soo qallaynayaa oo ma laygu leeyahay sidaas ayay ku ansaxaysaa oo soo qallayn maayo culimmadu say u badan yihiin jamaahiirtoodu say qabaan waxa weeye salaada shuruudeeda inay ka mid tahay tahaaratu almakaan waalbadan wathawb in jidhkaagu daahir yahay maradaad qabtana daahir tahay meeshaad ku tukanaysana daahir tahay shuruudda salaada inay ka mid tahay bay culimmada jamaahiirtoodu qabaan haddii uu ruuxu ama jidhkiisoo nijaaso qaar ama maradii ama meeshuu ku tukanayay nijaaso uu ku tukado isagoo gaar ahaan ishalmaansan waxay qabaan culimmadu laba ra'yi qaar waxay leeyihiin salaadda uu soo celinaya abu xaniifa iyo shaafici riwaaya can axmed qaar waxay leeyihiin ma soo celinayo isagoo halmaansan ama xukunka aan aqoonin oo jahli u geeyey ama keri waayeyba inuu nijaasada iska daahiriyo hadduu sidaa ku tukado ma soo celinayo waana madhabka maalikiyada iyo riwaaya can axmed waxaana daliilu ah madhabkaa dambe oy deliishanayaan xadiidkii abu saciidin alkhudri nebiga sal alla alayh wasalam ayaana tujiyey buu yidhi maalin falamaa kaana fii bacdi salaatihi khalacan calayh salaaddii markuu dhexda marinaya nebigu sal alla alayh wasalam buu kabaha siibay salaadda kabuhu ku tukanaya isagoo kabaha qaba ayuu salaadda tukanaya kadib wuu siibay kabihii buu siibay nebigu sal alla alayh wasalam kabihii ayuu siibay markuu siibay kadibna nebigu sal alla alay wasalam dhanka bidix buu kabihii iska dhigay dadkii markay arkeen saxaabadii gadaashiisa taagnaydee la tukanaysa markay arkeen nebigoo kabaha siibay bay iyaguna kabaha siibeen nebigu markuu salaaddii ka baxay
وحكيري ما بالكم ألقيتم نحالكم محايد كل حيوت كبها أبحسين مركزها وحي كويرادين رأيناك ألقيت عليك تي وحن كو أرقنا يضو كبها بحصدي وكبيه إسكسها أنا أقول سيدا سأنو كبها أبحين هذا كرعنا مركز رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا جبريل بصلاة دحي إذا يقول يمدو إيش شيء لبضا إذا كبود إني أي قرن يقشن لي ساسا نبحي يدوك معه بحسدوا مركز النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فينا عليه متكين مركو مساجك يبات كبيه سحفيريو فإن رأى فيه قدرا هدو كو أركو وسخ نجاسي كو أركو فليمسحهما وليصلي فيهما دولك هكو مسحوها هكو ترترو كدي من كباها هكو كذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاسي محاكم مقدمر محمد الشرين حديث هو حديث صحيح وصوغم ويه أحمد أبو داود غير كود بصوص هاري وحوت الماما يا مركا النبي أو صلاة دي سيقار كم بذا كتو كذي كبو وسخلت قدر كاسي من نجاسة وسيدي قوان علماء الغرب هدي مركز صلاة نجاسو هذا أوجين أما هذا هالمانتي اللي قلت كذا اللي سوء علينا نبي صلاة سوء علينا سيدا سيد ليشانيان وأنا مذهب علماء القرقود قبان المهم سيدا ددالكو كتشرو احتياطكو كتشرو تحدركو كتشرو صلاة إلا سوء عليه واسم الصلاة خلافية ويسار الشيخنا والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك 8 شنات وحولي هي شيخنا قف قلي ديق مسلم او قف ودلي سي كاس kadibna dhuuntay ama la waayay isagoo ka baqaya qisaas hadii uu xaj ka tago dambigaas ma loo dhaafayaa sidoo kale lacagtii diyada ma ku dhisi karaa masjid isagoo raba inuu si hoose isaga dhaqo dhiiga muslimka dilka xaq darrada ah oo ruux muslima kas loo dilay waa dunuubta ilaahay laga galo kuwa ugu waaweyn بل الشرك كمر كلاجي ما ذنوب تأوين دم بجسار راعة وقتل مؤمن بغير حق عمدا وإن روح مؤمنات كسر الدشو حق درنا أتكدشو وأنا القرآن كو سعد إلهي أشياء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما تامر كوحوي ودم بهذا حدث dembigaasi markuu ruuxa ka dhaco saddex xaq baa ku tacalluqaya xaqa koowaad waa xaqullah adoonkan aad xaq darrada ku dishay ilaahay abuurtay uusan kuu idmin xaq ilaahay baa hortaada fuulay waa mid xaqaas ilaahay kugu leeyahay wuxuu ku dhacayaa tawbad sax ah inaad la timaado xaqa labaad waa ka dishay xaq darrada ku dishay xaqiisa waa كان عندنا مع فينكرت آخرون بعد سلطة جيسان هدي إلهي وكاس أمرنا يو هي هدي وقارتك وجود جاهيو نارتك الوجود طور هيو هوشي سو آخر يجرت أيضا حق الصدحات وحق ذاتك بحال كيسلها إيه الكيسية قرابة دي سي عطا في سي هي جنا حق هذا الله ميدو بقول عيا إن هذا السؤال يبتو ويكو قصاصتان ويكو دلان iyo inay ku cafiyaan oo bedelkii qisaasta diye iyo markaa qaataan labada mid buu xaqoodu ku dhacay inta midina haduusa jirin xaj baan tagay oo wax isa soo dhaqaya oo intaan dhuunta meelaha ku dhuuntaan xoolihii sadaqaynaya warkaasi war soconaya aduu sadaqa ku yahay soo xajidan aray ku jirtaa haddaad xoolo baxsanaysan adeeg ku jirtaa لكن روحي مسلم كيد شيء يددكي سي حقه دي سيدا كما دعو دي مدى دون كبر نقول ميس والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك الحيتبنات حولي هي شيخنا عنق لقود علي سينو هدي لا يسكن نكاحو ننكي يكبدي دالي دالشد عنقاس كدب عنقاس حكم كي سمحون نقنياه وعلميا مسوى حلال waxaan u fahmay horgalka miyaa waxay Soomaalidu dhahaan ilmo guurka nikaaxa ka horeeyay soo saasma horgal waa garac
warku waa inta horgal waa garaac maxaa yeelay marka uu uur galay nikaax sharciya ma jirin nikaaxa sharciga dib ka yimidna ma xalaalaynayo sidaas daraaddeed ilmahaas waa waladu zina waa ilmo zina ku dhashay ninka kaata biyaha iskale kuma abtirsado carruurtiisana maxram uma aha isagu uu dhalay laakiin wuxuu ku abtirsanayaa hooyadii dhanka abtiyaashii buu aadayaa hooyadii bay isdhaxlayaan carruurta dhanka hooye ay walaalaha ka yihiin walaalay noqonayaan oo dhanka hooye ah ama kani ha dhalo oo dib looga guuriyey ama ku kale ha dhalo kan carruurta uu dhali doono iyada uu nikaaxa saxda kaga dhalayo iyo carruurtu waa walaalo laakiin dhankay walaalo ka yihiin ya dhanka hooye walaalo ka yihiin dhanka aabbo shaqayskuma laha ninkani waxa weeyaan orga uun ri fuulay waayo wax shaqo isku leeyahay wax abtiroo uu qaadanayana ma jiro wax maxramnimo ka laazimayana ma jiro shaqo isku ma laha laakiin garacu dhanka hooyadii buu aadayaa wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤاشا تطبيق تبنات سائلك وحاول ليهي شيخنا هديد يا صدقاء محي كليهين سيدا كلا هديد أما صدقاء عن قف ووضه وأنا نقو بحصدي وحمك عوني كرا أما مك استعمالي كرا هديد سي أشر من لقى هلا الصدقة هي هديد وحاول لحيه سيد الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله علماء كان إليهين الصدقة وحل إلى هذا ما يعطى لوجه الله عبادة محضة من غير قصد في شخص معين ولا طلب غرض من جهته صدقة وحل إلى هذا وحد إلهي درسي وبحثتي والعبادة برحلة ولا تشيد قصد كابون وصل شخص معين أهين دنقوني أنا آذن كلاهين إلهي وناجرات كيه شيء بس واحد dadka baahan baana la siiyaa oo baahi baa loo bixiyaa taa waxa la yiraahdaa sadaqo hadiyadna waxa la yiraahdaa ma yuqsadu bihi ikraama shakhs muayyan wax ujeedada aad u bixinaysa aad tahay ruux gooniya inaad ku maamuusto ruux baad ku ikraamaysaa ku sharfaysaa إما لمحبة أما تشعيل كالا دحين وإما لصداقة أما صاحب نما كالا دحيس وإما لطلب حاجة أما الظن آد كالا دحين مركا هديته وشرفت وإكرامت وماموس باكوشرا انت بدن ضدك آد قدرين يسي ماموس يسالسيا منعها قربك كلية ما يعني إلهي يقول له أجر كجهل كلية كمجرة معنى كلا يحمل سنتين تانا وحل إلى هذا هدية بل إلى هذا ساس تردد بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية هدية وقادا شرا وأقبل شري ويثيب عليها ضدك هدية وكانينا أبا المريم بوحل شري سين عيدنا كركي سقلت ويالا أما الصدقة موسى قادا شري السقي آل البيت كتونا صدقة بين قادا شري لأنها من أوساخ الناس وضدك وسخ ذي واحد dadka markay ay sadaqada bixiyaan soo dambigooda lagu ma dhaqo marka waa wasaqdii waay nabiga iyo aalkiisu marka waa loo diiday ma mayna qaadan jirin loomana ogolayn laakiin muxuu qaadan jiray hadiyada oo maamuus ahayd niyaday marka ku xidhan tahay saas daraadeed bariira markii muxuu ahaayay sadaqada la siiyey iyaduna nabiga hadiyad uga dhigtay Soomaa adiga wixii sadaqa lagu siiyay adigu markaad bixinayso hadiyad waad u niyoon kartaa kulba niyaday ku xidhantaa lagu bixinayo marka macnahaas u dhaxeeya hadiyada iyo sadaqada kulligoodna cadiya la isku dhaha kulligoodna hibe iyo cadiya la isku dhaha waa siismo oo saruuxu waxba ku doonayn bedel ah laakiin niyada kala duwaysa iyo ujeedada la waleey keeba fadli badan bay culimadu isweydiiyaan asalka sadaqada fadli badan asalka sadaqada fadli badan لكن مرمر بهديه فضل بدناته صور كما حالتها قاركود تاس هو جوابته سؤال شهرين طلبادي وحوي
sadaqadayda ama hadiyadayda wax ma ka cuni karaa aad baxsaday jawaabtu waxa weeye sadaqada maya ama hadiyada ha haddaad hadiyad bixiso ruuxaad u hadiyeysay waad la wadaagi kartaa ama haddaad sadaqa bixiso sadaqadu waa qurba maxda waay wixii ilaahay dartii loo bixiyana ruuxa baxsaday kuma noqon karo wax ka midana kuma noqon karo xataa inaad siisma ugu noqoto bilaash iskaba dhaafay xataa ma soo iibsan kartid dib uma soo ceshan kartid waa kii xadiidkii bukhaari qeyrka ku soo arooray cumar baa wuxuu sadaqaystay faraskii ninkuu siiyey wuxuu arkay isagoo dayacay oo iibinaya inuu dib u soo iibsado damcay nabigu weydiiyay sallallahu alayhi wasallam markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi soo iibsanin maxaa yeelay alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqiidu uma yacuudu fii qaydihi ruuxii wuxuu baxsaday ku noqday waa sidii ay mantagay oo mantagiisii dib u cunay oo kale soomaali marka wax ilaahay dartii aad u baxsatay laguma noqon karayo ama hadiyadu way ka yara xukun bedelan tahay wallahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك استيتوناد وحولي هي شيخنا قف قال أها أو كيريدو كتمي نفتنا كبحدي ناربو كتيرا مديه كرا سواء كأمصا ما داموا آنا لتاقنين حيلي جاي نفتو كبحيسي لغا يابا إنو إلهي توحيد كوافتشي مدوى الاسبوع فقصين سي آن مقعابيس أهين oo itlaaq oo tuuban in la yiraahdo gaaladu naarta ay galayaan muuminiintuna jannada ay galayaan taa quraanka sheegay sunnada sheegay sidana oo loo itlaaqi karo laakiin ruux dhintay daahirka sida anaga noo muuqatana gaalnimo ku dhintay oo gooni ah naartu galaya ma la dhihi karaa haddii nas ku soo arooray inuu naar galayo waa dhahaynaa iyadan hadal male أبو لهب هي حاسكيس سو قال له مدبر سو قرآن كم شيء نار قليا نار قليا سيء ناقتيس أبو طالب حديث كاشيء نار بو قليا وحي شخصيا كوسا أروري أيضا السيدة سالناها لقى قبر ماي وحايماني سهدي وصل نص كوريا كوسا أروري نما قعابين annagana sida noo muuqata gaalnimo oo ku dhintay ma dhahi karnaa gaalkaasi naartu galayaan halka way meesha marka culimadu isku khilaafayaan qaar waxay leeyihiin naar buu galayaa la dhihin hawsha naar iyo janno ilaahay ha loo daayo ilaahay waa iska leh ihtimaal waxa dhici karaysa ruuxani inuu tawxiid ku dhintay baa suurtagal ah halkaas ay marinayaan culimada qaarna waxay leeyihiin wartawxiidku ku dhintay u qarsoonayd isaga ilaahay bay ka dhaxaysa anagu laakiin waxa weeye waxa daahirka waxa loo muuqday inuu gaalnimo ku dhintay mar hadduu gaalnimo ku dhintayna nusuusta waxaan haynaa ruuxii gaalnimo ku dhintay inuu ahlu naar yahay sidaas daraadeed waxaan dhihi karnaa hebel gaalnimo ku dhintay waana ahlu naar madhabkaana waxaa qaba culimada qaar badan oo ka mid ah waana madhabka xooga badan dhanka daliilka marka la yiraahdo laba xadiid baan soo qaadanaynaa وأرنت أيضا لو دليشني حديث كوري وحديث كصالح بن عبد الله عن أبيه وحليه هي نبي وحاوي من أعرابية مركز أوحر يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم نبي الله أبهاي قرابة حريرين شري وكان فأين هو أبهاي كانوا أهان شري قرابة حريرين شري ولا كوسمين شري سيدروا أهاو في عنا يا حقيقة أبهاي كشري أبهاي حقيقة من نار بسجن markaas nabi wuxuu sallallahu alayhi wasallam fi naar abaha naartu ku jira bal maxaa u geeyay waxay ala badan laba daba kalabo naar bu ku jira فكأنه وجد من ذلك xoga arintii waa ka xumaaday waa ka murgay markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam ya rasuul allah fa ayna abuka markaas wuxuu abaha aaway adiga abaha aaway فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار ميل الله ميشات كسو مرتو قال قبر جيسة قبر قال بهذا صومرتو ناره بشارة النبي صلى الله عليه وسلم يا قبر قال بهذا مرتو وحتى هذا أبشر بالنار يا
hadday badan yihiinna abshiruu binnaar naarku bishaaraysta ayib ninkii acraabiga ahaa markuu hadalka leeyahay kadib uu soo islaamay fa aslama alacraabiyu bacdu markaa kadib uu soo islaamay markuu soo islaamay baa wuxuu dhihi jiray laqad kallafanii rasuulullahi sal alla alay wasalam tacaban rasuulku wuxuu igu kallifay buu yidhi mashaqo iyo hawl culus buu igu kallifay buu maxaa yeelay buu yidhi maa marartu biqabri kaafirin ilaa bashartuhu binnaar buu yidhi weligay qabrigaa ma marin buu yidhi ilaa naar baan ugu bishaareeyaa buu hawl culus buu nabigu qoorta ii geliyey sala allahu calayh waalihi wasalam xadiidkaasi axmed iyo ibnu maaji keyrkood baa soo saaray waana xadiid saxiixa soomaali marka gaalo mucayaniin ah ayuu nebigu leeyahay naar ugu bishaaree qabrigaad martee gaalo waana mucayan markaasi macna waxaa kaloo ku tusayaa iyadana xadiidka taariq ibnu shihaab oo isagana xadiid saxiixa xilligii abubakr sidiiq waa kii murtadiintii lala dagaalamay qabaa'ishii lala dagaalamay markii la jabiyey murtadiintii ayay wafdi soo direen wasaakha niman la yidhaahdo ree asad iyo qatafaan ka tirsan abubakar bay u yimaadeen abubakar marka waxay leeyihiin dagaalkii waa dhacay sulux baan rabnaa heshiis hana lala galo markaasaa abubakar wuxuu khiyaar geliyey bayna alxarbi almujliya waasilmi almukhziya ama dagaal idinka dhanba idin hufo idin eriya qaata ama ma aheen nabadgelyo aad ku dulowdaan qaata ya heshiis nabadgelyo dulli aad ku gashaan qaata labada mid markaasaa waxay yidhaahdeen haadihi almujliya qad carafnaaha faman alkhziya dagaal naqixiyo dhulka naga saara isaga fahanaya nabadgelyadan aan ku duloobayno maxay tahay bal noo fasir markaasaa wuxuu ku yidhi horta waxa la wixii hub ah waa idinka dhigaynaa hub waxaad wadataan oo dhan waad dhigaysaa kow wanaqnamu maa asabnaa minkum wax alla wixii xoola aan idinka qabsannayna ka daba imaan maysaan waa saan u qaniimaysanay haye watarudduuna calayna maa asabtu mina wixii xooleed naga qaadateenna waad noo soo celinaysaan ayib intaana garanay wataduuna lanaa qatlaana dadkii aad naga layseenna magtoodii baad na siinaysaan wayakuun wuxuu yidhi wixii annaga aan idinka dilayna mag male wayakuunu qatlaakum fi nnaar wixii aan idinka dilay naartay galayaan waad qiraysaan in naarta galayaan wixii annaga nalaga dilayna jannaday galayaan ayib intaasaad qaadanaysaan sidaa nabad iyo heshiis waa idinku seeraynaa hadalkii markuu jeediyey saxaabadii la fadhiyay muhaajiriin lahaa ayaa oo cumar ka mid yahay ayaa waxay ku yidhi cumar muxuu ahay abubakarow inta aad tiri oo dhan waa kula qabaa laakiin hal arrin ah halka arrin eena kula qabin waxay tahay in aad tidhaahdo dadkiina laga dilood naga disheen magtoodiina siiya maxay dadkani ilaahay dartii baa loo laayay shahaaday qaateen waxay islaynayeenna gaalay ahaayeen ruux muslim oo gaalo ku shahiid qaatayna oo gaalo dagaalkeeda ku shahaado qaatayna mag lagama qaato qodobkaasi maya weydi laakiin inta kale waa okay saxaabadii kalena cumar ay ku raaceen masaladii marka mag noo soo celiya meeshaasay ka baxday laakiin maxay isku raaceen saxaabadu waxay isku raaceen dadkii laga laayay gaaladaasi inay naar galeen maqsuudkuna intaa waa soo maarta marka waxa weeye sida xooga badan ee daliil ahaan xoog badan gaalka mucayanka ah hadduuba gaalnimo ku dhintay daahirka sida noo muuqata waa la dhihi karaa naar buu galayaa amaa xukunkaa wixii ka gedisanoo u qarsoon isagii allihiisa waa wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك سقالي تبنات وحولي هي شيخنا نن أيا قبض لبحي كن سقال بقول سديتني سديدي قبضي ننكي وحيو دشيشان عنق كدب ننكي أيا قبضي صدح كفوري كدبنا نشيخة أيا يدي دبو دونا قبضي أو رير كيدي كدونا ننكي قبضي ودون تايونا قرسدي هدانا دب أيو أفراي مركا الشيخ هدا دب مو قرسن كرا horta
la bixidda dumarka inta laga kaxeeyo weligooda meel lagu soo mehersanayo masaafada wax la yiraahdo waa khalad sida meherxadka iyo sida qarsoon la isu guursanayba ay khalad u tahay masaafaduna saas oo kale khalad u tahay haddii sidaa la isku guursado dadkuna aqoon darro u geyso ama wadaadada culimada u intay saa isugu sheegaan ay sidaas isku guursadaan markaasi waxa weeye nikaaxaasi iyo wixii ku dhashaba wuxuu noqonayaa nikaax sax haddii la yidhaahdo nikaaxu waa nikaax faasida oo weli la'aan buu ahaa nikaaxa faasidka ee weli la'aanta ah ama arkaantii qaar ka mida waayey markii la burinayo la leeyahay sax ma aha waxaa loo baahnaa in markii hore iyo wada jooggoodii iyo markuu ka ilmo dhalayay iyo intuu gogol la seexday inuu ka hadlay ahayd sheekhu xalaal ma ii tahay seense u toobad keenaa sooma laakiin markay dalqadihii ka dhammaadeen inuu kala qiil baxo sheekhu guurka nagii horaabaa wax ka khaldana taasi waxa weeyaan waa istihzaa biaayaati illaahi tacadin lixuduud illaahi waa diintii oo kolba ruuxu suu jecel yahay uu u dhigo waay oo hawadiisa uu raaciyo waana arrinta uu sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullaahi uu leeyahay nikaaxa faasid baa le markii saasoo kale laysku khilaafsan yahay madaahibta qaarkoodna ay tasxiixinayaan yacni wax weeyaan in qaabkaasoo kaleo ruuxu uu la qiilbaxo kolba uu naftiisu meeshay rabto uu la aado qaabkaasi wuxuu leeyahay almudaadda lilaahi walirasuulihi waa si toosoo ilaahay iyo rasuulkiisa iyo diintii laysugu taagay wasacyu bilardi bilfasaad waa dhulkii oo la fasaadinayo diintii oo loo xeeladaysanayo leanna waxa weeye marka hore ee uu ruuxu sidaasi haweenayda ku qabo wuxuu qabaa inay nikaaxu u saxsan yahay wuu ka ilmo dhalay 5 ilmood buu ka dhalay wuuna loolaa يعني هو فري فريتانكي من لبعض هو فري هذا هو هيستي من صدحات هو فري ده القديم كذا ما ذي ميل ومرة مركوعي أيو أنتوا وداد رادي بالوداد بالحجاب عن مركز وداد يوحو كقيل بحي نكاحي هراء طبعا صاروا المها لجو كلا دلي أيو أنتوا دي بالرعب ما يولي لا أم وهاي مسافة كل بحر سو ما هين إن لجوهر مليون ليلة وروحات كويسة ودم بعض هاي هرت توبت كان عرورت هذا مصاحبة مثل صحمة إن لقى الله وحي هرا مركب ميزان لصار كذب إن لقى الله يعني لكن مركو وحي ورن إسكبا بينه هذا نقيل هل كان لو بحيو وعيار دين تلو عيار يوهاي وذلك هو قيل بحيينا وخلدين هاي ولو مذاهب تقاركود هبقى قوان لكن مسألته ومضادا لله ولرسوله وتعد لحدود الله والتحايل على شرع الله تبارك وتعالى واتباع للهوى ما الدين رعمة والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك لباتناد وحولي هاي شيخنا قف أيا العقو صوت ديري عرور أغون قف كلا أيا العقتي قاتي وندنتي يدو العقتي كما كانتهاي هذا عرورتي ويقان قارين قفكي صوت ديري العقتا iyo qofkii cunayna waa dhinteen marka caruurtaas ma afin karaan lacagtii laga cunay iyaga iska leh haday qaan gaareen way afin karaan xaqqa sideedaba ruuxa iska leh wuu afin karaa haduu gaaro marxalada uu xoolihiisa ku tasarrufi karayo oo rushdi gaaro ilmuhu inta yaryarihiin oo qaan gaar ka yaryihiin wax ma afin karaan xoolahoodana waxaan maslaxadooda ahayn looguma bixin karo looguma tasarrufi karo laakiin xaqii ay yaraan ku yeesheen oo laga qaatay markay weynaadaan kadib wayna cafin karaan wayna dalban karaan waxay la mid tahay oo kale haddii caruurta yaryarka ee qaan gaarin waalidkood la dilo oo xaq darro lagu dilo oo ay mag yeeshaan qisaas yeeshaan kasba abahood loo dilay qisaas way noqonaysaa laakiin caruurtii baa yaryar qaar kuwa yarka arka ana khiyaar ma laha ilaa kuwaasi ay qaan gaadhaan oo khiyaar yeeshaan ruuxa la qisaasi maayo
ولا سوغيا markii ay qaan gaadhaan ayaa markaa kadib la weydiinayaa ma la qisaasaa mise mag baad ku bedelanaysaa mid ka mid ah hadduu yidhaahdo mag baan ku bedelanayna mag baa loo bedelaya qisaasta waa laga baajinaya marka waa xaqii oo ayagoo yaryar ay yeesheen markay weynaadeenna ay cafin karaan marka way cafin karaan way saamixi karaan wayna dalban karaan Allahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤال كوبي لواتناد سائلك وحولي يهي شيخ قف بعد انتي وحونا كد انتي حاسكي نين لباد ايا قرسدي سدح دودو بهدي الله قدرويني چنادا ودا قلان حاسكاس يا اسكاله مميد كودا كواد مساميدكي ودن بيي مسوا الله خيار قلين ايا او حلالي يهي سدا آيات آياتهي وفيها ما تشتهيه الأنفس نينكو se haddii uu la dardaarmo uu yidhaahdo haddaan hortaa dhinto ha guursanin si aad jannada xuural cayn iigu noqoto maxay noqonaysaa kulli waxa la hubaa un saddexdan isku qabsan maayaan insha Allah taala aakhiro ama keebay xaas u noqon doontaa wala masalo ninku xaaskiisa ma dhihi karaa gadaashay ha guursanin iyo haweenaydu haddii rag badan ay martay oo guursadeen آخره كوده أي حاس نقول دوجا سؤال شندمبه جوابته دوحوي رجي كورسدي نينكي قدام بيه بحاس نقوليس أحاديث إسحوجين إنسان أرنتا تلمام إنسان أو كم إذا هي حديث كميمون بن مهران وحوليه هاي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنهما أيا وحو الدوري أم الدرداء يعني أبو الدرداء حاسكيسي أيو الدوري مركزي دي دين يكورستو كما قرسنا يتي هم هذه قرسنا لا وحي تري سمعت أبو الدرداء نينكي أبو الدرداء عن مغلبة تري السوغولي رسول كحول صلى الله عليه وسلم أي امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها نبي كان مقليب يجري بيتري نينكي أبو الدرداء بعد رسولك يغشى إنه رسولك صلى الله عليه وسلم هوين يدي كرستو أو جورستا أو نينكي يدي كردينتو كداشين نينك لك جورستا نين لواد نمانك إيجا كأودن بي آخر إسكال هذا هاي مركزا ولي بوحي ودرتي ولست أريد بأبي الدرداء بدلا أبو الدرداء عيدا كوب بدلا لي معاوية ومجرته آخرها دي الله صعود نيجي يجي أبو الدرداء كوب بدلا ما يرى له ويكتب حديث كاسي وحديث صحيحة لما الشاهد بولي هاي وميت كم إذا يكون إيمان دونتو قصة دي سؤال شكله أو نيكو حاسكي سمرديه كرا قداشي يبورسني لبدا الشاهد وحوي وموقوفة مد وحا لقورنا أسماء بنت أبي بكر زبير بن عوام باقبي نينكو أدقنا هوها آبهد بأتمد أبو بكر الصديق ويؤشيغت ويدعوت مركز أوحو كوير أبو بكر يا بنية اصبري كبرنا يدي الصبر يا زبير أصبر أديكي سأصبر محايل فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح هوين إذا هدي نيوان أكسن ليضو أدونك كوقبته ثم مات عنها فلم تزوج بعده كذبنا وكجير يودو قداشي أين قورسنين جمع بينهما في الجنة جنة دارلوكو كل منيه ويحاسو كل نقونيسا هذه إرسال باكو شراء لكن رجاله ثقات بوليه الألباني عليه رحمة الله مركا كوامد كاللبادي وحوي حذيفة لقى ورينيا ووحو ليه حاسكيسي وحو كيري حذيفة بن اليمان وصحابي سقونا حاسكيسي وحو كيري إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي هذا يسبب كيري هذا ضربته هنا سند حاسي يقول نقطه قضى شيء قورسني بكيري محايل فإن المرأة في الجنة لآخر أزواجها في الجنة في الدنيا محايل هوين يدو رجي أي قرستك وقدم بيه جنة آخر أي حاس وقول نقونيسا ورقصا وحو يلي فلذلك حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده أو ينكحن بعده ساس دراديد با
الله رسولك حاسسكي سوحو أدي ذي قداشي سين قورسدان يا بحلو دي ذي نبي حاسسكي سين قداشي سين قورسدان لأنه حاسسكي في الآخرة تاسو لي معناه لأنهن أزواجه في الجنة بها قبل صاري أسجنا عن عنة بإسحاق بكوشر تمرك اللي يسوق أحاديث تاسي وحي تلمام يسا ويسحوتشين يسا وحي تلمام يسا هوين إذا نينك قدام بيا آخره أي كل مدونانو أي حاس النقون دونتا سيدا ساحوك بدن مديه كرا قداشي هجور سنين جوابت وها ولا دردار مكرا لكن كما أي قسمنا وايها انتي ترى هذا بيكت شنكرت لا لبر بعدو كجيريود سلطة أودكم عليه صوما حاسكي سماها ويمدح بنانتها ويقورسن كرتا هذا يرتنا نينك هذا وركي سيري كرتا ويسكسوي كريسا مشكلة مالي لبضبا ويوفرنتها حديث كلا شراء دهيا وبدون سجن نمبرارو تشينو ودهيا هوين إذا هدي لقد انتو فلأحسن زواجها خلقا يعني رجي قورسدنينك أو أخلاق في عنابي قورسن دونتا حديث كاسي وضعيف كان هي رجي قورسدك أو أخلاق في عنبي آخر نين نقون دونتا إسقو وضعيف سنة كيسو مسقنا لكن كاهرة ونينك قدام بيدها هي كاسا سجن والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائلك لباتني لباد وحوليه هي شيخنا قلدا الشباب بنيستي ديك مسلمك عرورتا يددك واوين ودلينيا عيلشي بيها قرحينيا ما لديه كرافيع الكوداس وامد دين تعالي لغو كورييليو sidoo kale arinta ay ku doodaan shacabka aan laynay niyadooda ayaa lagu soo saaraya maalinta qiyaame masaxba laba arrimoodba muddo badanna waa baraarujinay laba arrimoodba waa dhaqankii khawaarijta in muslimiin ilaahay rumaysan la gaalaysiiyo oo diinta laga saaro oo sida gaalada loola dhaqmo oo aayaadkii nusuustii gaalada ku soo arooray dusha laga saaro lagu dabaqo waa dhaqankii khawaarijta mid labaadna waa dhaqankii khawaarijta dhiigga dadka muslimiinta in la fududaysto oo si fudud lagu daadiyo oo la banaystana waa dhaqankii khawaarijta labadaasi hadday kulmaanna waa labada sifo ee ugu caansan sifaadka khawaarijta arintaasina wax mubarrira ma laha wax haba yaraatee qiiloo loo heli karo muslimiin ha la laayo oo dhiigooda ha la banaysto oo siyaabo kala gedisana loo dhammeeyo oo ha la qarxiyo oo xoolahooda ha la banaysto wax qiil oo loo heli karo ma jiro in badanna masalada waa ka hadalay jihaadna lama yidhaahdo waxa noocaas ninka waxa noocaas oo kale jihaad u haystana way ka khaldan tahay masaladu feedhay ka gashay dhahan Itoobiyaanku yani wax way si khaladay u gashay sinaba dhiig muslim intaad gasho daadiso inaad haddana tiraahdo ilaahay baan ugu dhawaanayaa ma masalada inta badan ay ururada noocan inta badan ku khaldamaana waa iyo wadaadada u qiil bixiyana waa masalada tatarruska ay culimada qaar kood ka hadlaan tatarruska waxa weeye gaal iyo muslim isku dhex jira oo la kala saari kari waay gaaladiina muslimiintii ay gabaad ka dhigteen hadii la wada daayo faraha laga qaadana gaaladii ay dhulkii muslimiinta qabsanayso gaalada inta loo niyoodo markaasi hubka ma lagu ridi karaa adoo gaalada u niyoonay muslimiintu waxa ku noqdeen ay markaa gaashaanka ka dhigteen oo meesha isku ay ka dhigteen muxuu ahaayay ay dhexdooda ku jira isku qariyeen arintaasi waa mas'ala kale mas'aladaas marka inta la balaariyay oo si kale loo dhigay ba waxa lagu tatbiiqiyay muslimiintii maxay tahay gaalada ku dhex jirta hoteelada la qarxinayo hoteelada marka la galo caruurta yararka iyo dumarka xabada lagu laynayo toos loo laynayo
حيث قالوا كل حجرت تطرس كل حجر محوي هو بناك اللي قلت هو جنيه تطرس كل حجر محوي مركا ومسألة خلطة النبي قال صلى الله عليه وسلم في سورة هو هاي إن فتح الله تبارك وتعالى وكهالله مركي رسولك صلى الله عليه وسلم وسنة كي لحاد وآذي عمرضة الشيسكي حديبية مركو دعي النبي صلى الله عليه وسلم مقالة مكة إن أسنجل ولقى عليو وهشيس كن نقضو إلهي تبارك وتعالى مركو علينا يوحو كويري وأرنتا كعدي لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمة من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما وحا النبي قال دقال كان لو قبها شيء وإن تم مكة لقى السعودية سوى حرم كإلهي اللو ديدي مكة لقى السعودية مدينة لقى السعودية وهشيسكي قدبديسو أي لبك بدنايين لو أقبل سي قادة لو يري وحي أهيد وإلهي كل شيء علادو مقالة مكة وحا كودح شري وقالة هاي ستي مركا وحا كودح نولي رق يضمر مؤمنين ويدان أوغين ويدان كراني وهداد مقالة قشان إني دباتا قاردو لغا بقايو إذن كون كرانيني حديث لكن مؤمنين تايركي كودح شري قالة أيسان شري لهين وقالة قوني أبحي لهايين وكوغو صلي دي لهين وان عذابي لهين كعنت هذا كو عذابي لهين بمعنى إن الله يصول وقوف الصحو الله قال أنت لقوف صحي لها لكن محل قاعد يسوع عليه مقالة مكة وحى كودح شري ضد يروا مؤمنين وقرصون وأيضا قرنين وهذا مقالة دقال كوكا شان للديدين هنا دبات سوقا سومارتان قالها ماشي وبدن وضب ماشي قالها هي ستة سومار لكن محا كودح شري waxaa ku dhex jira dad yar oo muuminiintu ayna garanayno nabiga saxaabadu ka qarsoon dadku iimaankooda way qarsanayeen dadkaasa loo baqay inay dhibaato gaadho saas daraadeed baa nabiga la xaliyay sanadkii 6aad sanadkii 7aadna umru ku yimid sanadkii 8aad baa loo fasaxay oo heshiiskii ay quraysh jabisay mu'minka marka dhiigiisu xataa haduu gaal ku dhex jiro hatta haduu qarsoon yahay ديك الروح مؤمن كأحوليس كسولي حقيقة مركب واحد أنا ضد أن قالوا هاي سنة لا قالوا إن قال الله إن وحي كل حد مني كل حد أنتو إلهي بقى آخر جيلي أسوق محوا نيدي سالو قصو صاري ورادي نيدي سالو قصو صاري الله ياكو يرادي إنه نيد إلهي قصو صاري إنه تشنين إنه عذاب يوحو كل رقم إلهي بيوطالع لكن أديك وحلوي رديك مؤمن كدادين حولي سنة حب الراحة كو قادني يا كوفة صحيح تذكر الله يسوع أرن محوها ميال لقلا قيل بيحي كرمها لكن نبدأ ندين شيء ضد كسيد وضبا هدي روحه غلوي قالوا غلوي واحد جذب كدينات واحد روحه هدو حد جذب قالوا حد جذب كماله كوتا ما هذا ملا وسيس صحونيا مدبو كسي دريا وإساسيد دلدليا وأنا سيدي خوارج تواي وإسد الشيء هو بكوي كدم بيا كسي درا كوي وقتي صحابة خوارج تاها كوي كفل لاجوبية كدر نبا يجي قال نبا كحكومة مركز دي جوده بنيسته كوي كوا كسي فلاجوبي كوي كهريبة يجون قالات نتاي دهم بدي جوده بنيسته مركز غلوي حد ماله مر بعضو كوجو باللوضو ديك حق درا أنا قشو إن تصير دكتور مالين بس يفوقات مو يصون نقش ماله وسنة إلهي وسيد غلوي قالوا يقانوا وإلا مال شريعة قيل لوجه لكرو لجا قيل بحين كريو دي قال الدادين يوم الدحولة هذا اللي بنيستي أنا وكل جرن معي والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك استحيل تنادوا حولي هاي الشيخ اللي درتي سيان كوتش على هاي سؤال شيء وحي تهاي وحنا هاي ويل اللي يراءه وحلا يقول لي هاي الصلاة بدن وأنا انتردوا ذكرنا إنن waxay isugu jiraan salaadahaasi kuwa ilo shay ku dhaafay iyo kuwa xanuun igu dhaafay iyo kuwa dhalinyaranimadaydaba ay dhaafisay markaas ma garanayo cadadkii salaadahaas ee sideen ku soo kaleeyaasha wixii kaaga tagay halmaan ama hurdo kaaga tagay
wixii aad xusuusan karto soo qallee wixii kas kaaga tegay muran baa ku jira culimada dhexdeeda salaad kas looga tegay qallan ma leedahay mise ma laha kadib waxaad badsataa salaadaha sunnada ah maxaa yeelay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abu Hurayra wuxuu leeyahay إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته وحقوقه الرئي الدون كما أنت قيامة لك حسابنا وصلاة ديسة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح هذه صلاة وكقول حساب تيدا والليباني مركا وابد بادي وأنا الليباني وإن فسدت فقد خاب وخسر هذه صلاة حساب تيدي وفسادات دي فساد وحساب تيدي وقرد عنها مركا هو خساري هو فإن انتقص من فريضته شيء هذه صلاة سي واجب كيد وحسك قمان الله وحوليه هاي انظروا هل لعبد من تطوع بل في ريا أدون كيغو وح صلاة سنة أمليه هاي بل سنة أبارة إنو ليه هذه اللي هلو فيكمل بها ما انتقص من الفريضة وحي صلاة سي واجب كيسك قمان ينسقان قلي بل الله كملي الله قد ما يستريا ثم يكون سائر عمله على ذلك كدبنا عماشي سينتي كلا saasay u soconayaan marka hadii salaadii waajibka ahayd wax ka qasmeen salaadaha sunnada abadi wixii halmaan iyo hurdo kaaga tagayna nabigu wuxuu yiri markaad xusuusato qalle waxaad ka xusuusan tahay laymo wixii kas looga tagay salaad kas looga tagay qallo ma leedahay muran baa ku jira wallahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائل كافر لا تنادوا حوليه يا شيخنا وحان كنا نهي دلك مريكنك سياسيين الصوماليين قار كميدا oo ay kamid tahay Ilhaan Umar waxay u doodaan qowmiyadnimada ama khaniisnimada maxay sheekh diintu ka qabtaa qofka noocaas ah sidoo kale cod ma la siin karaa dumarka iska daaya Soomaalida dhig يا إذا كي والو قد قضينا دور كراكا المهم روحها سوى إسلامي مش شيء إنه فواحشتا يوحيالها فوشحون يمنكراتك إنه ضدك أغير أما أوتاغيرو وعلاماتك منافقين توه الله قرآن الكريم كوحكول يهي والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ما هي سميان يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف رجل منافقين تا يضمر كمنافقات قاركود با قارك كلحيقة ويكليمادين ويسليه ما هي سميان حمان تيفران وناقنا ويريبان منكراتك waxa ugu waaweyn ku waaweyn kamida dambiyada loo yaqaan fawaaxishtu waa zinada iyo khaniisnimada liwaadka iyo waxa fawaaxish shariicadu tiraahdo galmada iyo jinsiga wixii la halmaa dunuubta ugu waaweyn marka mid sidaas daraadeed cid ilaahay iyo maalinta aakhira rumaysan rajana ka qabtaay in ay dad ama khaniisiin ama qowm luut ama zina iyo fuxshi akhlaaq xumo ka shaqeynaya in uu supporter u noqdo ama taageero ama shuruuc ku taageero ama af ku taageero ama awood ku taageero ama dhaqaale ku taageero waa arin aad u culus waay hadduu xalaashado oo uu yiraahdo xalaal bay ii tahayna diinta uu kaga baxayaa waana ijmaac وحيالها واوين مما يعلم من الدين بالضرورة عدي حلاشتو بنيستا إنو دين تكبحيو قالوا بيو علماء دورنا ويسلو قولي خلافكم أجل مسألة أيضا عاد بمركة هالي سوطة يرنتا أيضا وأنا إن روحا مسلم كآدي سيئلاني سلبات وحوي إناد كرسي يتشغر رادين يسو قيل نقون ميسو إناد منكرات كنوعا سو كاليتا أدادك أغويرنا أما آد كشقيسو أبداً in dadku ugu kaalmeeyaan waxa noocaas oo kala ay sameyntoodii ugu yeerideedana dadka kale inay ugu kaalmeeyaan iyaduna waa xaraan oo Ilaahay wuxuu yiri wala taawanu ala al-ithmi wal-udwan had gudub iyo dambi oo ruuxu ku jira ama galayo garab ha ku siinina ha ugu kaalmeynina naseexu mudayahay haduu naseexada diidana waa inaan garab loo noqonin oo dambigu isaga ku ekaado arintaasi marka arin culus weeye ama
halkan kuwan ka hadlayna ha noqdeen ama Soomaalida qurbaha jirta ha noqoto inta badan siyaasadka waxyaalahan gala ruuxa muslimka ah rag iyo dumarba waa inuu diintiisa ilaashado aqoontiisa ilaashado aakhiradiisa ilaashado akhlaaqda ilaashado marnaba kursi baan raadinayaa u noqon mayso qiil iyo mubarrir u noqon mayso waxyaalaha noocaas oo kale inuu ruuxa muslimka dhex galo wallahu a'lam جزاك الله خيرا بارك الله فيك سائلك شان لا تناد وحوليه هي شيخنا هدي أن حاسكيga ku dhaho gurigiina aad ma iga furan tahay gurigiina aad haddaad furitaan ula niyooto way furan tahay alfaada iyo weeraha iyo kalimaadka wax lagu furo baa laba ah fuqaadu say u qaybiyaan alfaad waxa la yiraahdaa waa alfaad sariixa sida waan ku furay oo kale kalimatu talaaq iyo wixii la mid ah waa sariix hadduu ruuxu ku dhawaaqo niyad uma baahna toos bay u furmaysaa alfaada qaarkoodna kinaayaad baa la yidhaahdaayo kuma cadda furitaanka laakiin waa laga macnaha way qaadan kartaa kelimadu alfaada noocaasa kinaayaadka ah hadduu ruuxu furitaan ula niyoodo furitaan bay noqonaysaa hadduusan furitaan ula niyooninna furitaan ma noqonayso waxaa ka mid ah tan hadda su-aasha ku timid oo ah reerkiinii aad waa kelimaday fuqahadu yidhaahdaan alxiqi biahliki reerkiinii aad marka madaahibta afartuba waxay qabaan hadduu ula qasto furitaan waa furitaan waxaa ka mid a maalan xor baa tahay iyo muxuu ahay waad madax bannaan tahay iyo rag kale waad u bannaan tahay iyo muxuu ahay waxyaalo badan saas oo kale jira haddaad markaad ku hadlayso qasadkaagu furitaan yahay way furmay haddaad una reerkiinii aadoo balaan soo yar naso ma garat ama waxoogaa inooga keen ama biilkii baa waayahan yara qaribana bal meelaha ku soo yara waji qarso bal reerkii aad haddaad ula jeedana furitaan ma aha marka waxay ku xidhan tahay biyada aad hadalka ku tiri ayay ku xidhan tahay inay furitaan noqoto iyo inaysan noqon wallahu a'lam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سائلك لحيلواتناد waxa uu leeyahay sheekhana laba su'aalood isku dhaweyn sraacinayna sheekhana waxa lagu jiraa bishii mawliidka marka sheekh waxyaabaha la qalo bishan iyo raashinka lagu qaybiyo mawliidka ma la cuni karaa maxaase suufiya la dhahaa qaybta labaad ee isla su'aashaas waxa uu leeyahay saa'ilku ilaahay cimri dheer ha ku siiyo sheekhana ilaahay darteed ayaan ku jecelahay waxaan joogaa dhagax buur su'aashaydu waxa weeye maadaama ay tahay bishii mawliid waxa jira reeraha qaarkood inay qaaraan ururiyaan bishan ay ugu tala galaan mawliidka markaas qaaraankaas haddaan bixiyo dambi ma igaga imanayaa maxaase igula talin lahayd jazakallahu khayr horta mawliidka horeyna uga hadalnay yani munaasabadan mawliidka horeyna culimadu waa uga hadleen muxaadaraad baa laga jeediyey waa la faahfaahiyey in badan ummaddan in badan hadda way fahantay waa bidco isumaadka iyo dabaaldega la samaynayo waa bidco weeye aad uga dambeysay waqtigii nebiga sal alla alay wasalam iyo saxaabada iyo quruuntii saddexda ahaa qolada ugu dhoweysay waxay leeyihiin wuxuu bilowday qarnigii afaraad ayaa mawliid la isugu yimaadiyey xafladihiisa u horreysay masaladu ma aha maalinta isniintoo la soomo xaflad ma aha sida wadaadada u dabaaldegaya ay yidhaahdaan nebigaaba soomay marka oo isniinta sooma yidhi waa maantaan dhashay lagama hadlay isniin la soomo ma garat laakiin waxaa laga hadlayaa xafladan iyo qubacdan iyo xoolaha la qalayo iyo kan iyo waayaan damar waxayba ku dareenba jidadka hala maro oo inta baabuur la qaato buubaaba waaba ka dartayba ka daroo dibi dhal muqash maalinba waxbay kusii daray sida maartay hadda aan ka hadlaynay qulubigu uusan nihaayo u lahayn bayna bidacuna nihaayo u lahayn maalinba waxbaa ku darmada marka qarnigii afraad haday bilaabatay su'aashaad isqaarna waxay leeyihiin qarnigii lixaad bay bilaabayba su'aashaas weydiin karta waxay tahay haddii camal ilaahay loogu dhowaanayahay muxuu qur-aanku u sheegi wahay haddaad tidhaha fabidaalika falyafraxuu buu ilaahay yidhi waa farax oo faraxi dabaaldegna waa noqdaa si kalena waa noqdaaye faraxan nebiga sal alla alay wasalam taariikhdii u dhashay ah haddii aayadda tafsiirkeedu sidaa yahay maxay saxaabadii u fahmi waayeen maxay ugu dabaaldegi waayeen
هذه صحابتي كهوس بحذي وح صحابة كهوس بحي دين ما بهه تابعينتي أرضه وضعها محي كهوس بحذي هذه بتابعينتي كهوس بحذي صدق ذي قرني أو نبي أمانة يا علماء دي مسألة محي كهوس بحذي محي قرني جي أفراد عدة فهمت وحين أنت أصلا فهمت صوما سيداس درادة بدعة نمدي سشككم أجرو مر هدو بدعية هنا وحقليا حديث النبي ويري وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وقصتو ديب لكن الدين ليدين كرد جدا يسكتشر ورسول بدعة ويرسول صلى الله عليه وسلم وحكلوا قليا حديث في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد دين تاني محمد كسو دكتي وقت جيسي أفشر أنتي قماتي إلا واحد قدم يسود يمشي صوما وحن إيادا عين روحي كسو درو ديبك كينا ولو دي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مركا وبدعتك ديبك تمد دين تي نبي محمد كتجينا كمشيرتو مرة دينا كتشرين إن لقى قيب قلاي ما بنانا إن حول الله قلا ما بنانا إن حول الله بحيو ما بنانا لأنه بدعو شريعة خلاف سن وحولها يقول بحنيس طيب حولها لغو قليما لعوني كرا سي قاران كساسا كجوابني قاران يحول لغو ما داري كرا بل مركي لسي أخري موليد يا حفلديهس يا مناسبتيهس حد قدو بدن بي حنبار سنتاي ورسول كلفتيس حتى لغو حد قدو بي رسول كليلي وان شعلنا هاي ويساقا نود بالدقينا يعني واحد قدو بي لأن الددوينها هم بدنوا كم إذا ما حلقة أورورنا يا وحلقة أورورنا يا نبي حفلتي سب الله أورورنا وإسلامها جيب كودي فرق واضح حلقة صاري سو حتى من الشيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدق يا وحول وأوساخ الناس وادتك وسخ ضودي السجون ما قاعدين شيرين أهل بيت كيسنا لو ما أقولين هدي ما جيس اللي أوروريا جور يا عامضوا حيبقوا تقارنابا وصدقة النبي وصدقة النبي مركب ميل قدع بدن بيحبار سنتي ورسول كميل قدع صلى الله عليه وسلم تامي داوي أما كقيب قادة الشديسة وتعاون على الإثم وي إلهينا القرآن كوحكود ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحي ذنبي حد قدب يبدعاء هاي سوق الميسانين مركب ما بنانا إن لا قيب قاتو حولها لقو قليل ملعوني كرا مناسبة بدعاء حول اللغو قليها عنين هذه بسم الله اللغو قورعو بسم الله اللي حوله بخت معه نجاسنا معه لكن إناد كقادته أما كقيب كشو أما آد عنتو بان نوع كالمة يتاقيرا صوبا مركا انتي بنيستيها عن عنتو لكن أذوه وحكو درسني والله أعلم جزاك الله خيرا وبارك الله فيك سؤال لبعتني تضبط سائلك وحلي السلام عليكم سلام كدي مقعي محمد سعيد وحن كنا الله يركابه سؤال شيء waxay tahay hadii meherka gabadha loo sheego marka la guursanayo uu gaadho 85 gram oo dahab ah sakama lagu leeyahay hadii meherku amaah yahay sakadii ma bixinaysaa mise markay guddoonto ayay bixinaysaa ta kale hadii ay furiin dalbato ay tidhaaho meherkayga waxaan ku iibsanayaa warqadayda sakadiina aan laga bixin xaalku muxuu noqonayaa Allah ku xifdiyo والله سؤال هذا استسارا سؤال شهورة ذهب كدمر كو إسكو قرحيان زكاة اللقولية ذهب كجناعسك إن زكاة اللقولية ولا سلو قولية ذهب ككيد كلا دكتنا إن زكاة اللقولية ولا سلو قولية لكن ذهب كدمر كو إسكو قرحيان زكاة اللقولية هاي مسألة أساسية ومسألة خلافية وهي علماء ذونا ويكوك على أركتب بدليه إلى حلق الصحابة إلى ما أنت لوك على أركتب بدليه طيب هذه السنة تصوريكو ذهب كنا هو قارو النصاب كي يقدر كي زكاة كواجبيسي إن زكاة كواجبيسو صحابة بدن باقبة تابعين تا أصحاب الرأي قول عند الشافعية رواية عن أحمد الظاهرية ابن منذر الصنعاني علماء بدن برجحها وحان لو دليشانيا عموم كالنصوص تذهب كسوارورت ذهب كالنصوص تكسوارورت إن لقى زكينيو مين كلا قادين كان ليسكو قرحيو iyo kuwa kale nusuusta umumkeeda loo daliishanaya
احتياطكuna saasuu ku jiraa inay gabdhuhu ka sakeeyaan mas'ala waa mas'alada waa goormay zakadu ka waajibaysaa waa markuu gaadho 20 mithqaal oo nisaabka dahabka ah 20 mithqaal markii gram loo bedelo waxay leeyihiin waa 85 gram 85 gram wixii ka yar zaka lagu malaha laakiin wixii gaadha ama ka badan ayaa zaka lagu yeelanaya waxa laga bixinayaa boqolkiiba 2 badh ama rubuc 20 waxay shariicadu u taqaan tawaamid masalada labaad gabadha hadaan la siinin muxuu ahaayay meherkeedii zakada ahaa waxaan u jeedaa meherkeedii dahabka ahaa oo ninkii uu iska haystaba deyn ahaan bay ugu maqantay uu iska haystaa muusan siin sida ragga Soomaalidu u badan yihiin gabdhaha meherka lama siiyo wala iska haystaa hadhow baa lagu dhintaa marka saalay sheekh waa lagu dhintay maxaa la sabay marka gabadha hadaan dahabkiiba farata laga gelin oo ninka ay ku leedahay zaka ma lagu leeyahay su'aasha labaad waa masaladaasina waxay farac ka tahay masalada la yiraahdo deynta ka maqan zaka ma lagu leeyahay haddii zaka lagu leeyahay maada lagu leeyahay iska lahaa mise ruuxa deynta ka qaatay ayaduna masaladaasi hoos tagaysa waana mas'ala khilaafiye weeye waxaana loo badan yahay haddii ruuxa deynta ka qaba uu deynta qirsan yahay oosan inkirsanay qadarkeedana uu ogol yahay awoodi karo inuu ku siiyana diyaar u yahay laakiin adigu aad u daysatoodan ka qaadanin waa sidii amaano ku taalo kale zaka waa lagu leeyahay amaano meel ku taalo kale waay adaa ka qaada waayay ruuxuna diyaar buu ku leeyahay una kari kara waana ku qirsan yahay xaaladaasi sidaas waa in markaasi zaka lagu leeyahayna cilmo badan baa qaba haddii uu yahay cidda deynta kala maqan cid ama ku diidan ama waa caydo maba haystaba ama waa mumaatilo uu ku meermeerinayo uu heli karaa ama uu ba inkirsan yahayba markaas oo kale deynta ka maqan zaka lagu malaha waa wax inuu ku soo gali iyo inuu ku soo gali inay kugu soo noqon inay kugu soo noqon gacan uur ku jirta waa waxaadan haynin inaad helina aadan ogeyn oo meel kale ka jirana ka sakay hadii lagu yiraahdo waa culays sooma sidaas daraadeed xaaladda iyada ah zaka lagu malaha ala raajih laakiin hadii aad hesho oo ay ku soo noqoto marka ay ku soo noqotay baad hal mar ka zakay hal sano zakadeed baad ka bixinay sida maalikiyada culimada qaarkood qabaan waa mas'ala adigu khilaafkeedu u ballaaran yahay sidaas way marka deynta maqan gabadha dahabkeeduna deynta maqan buu marka la xugum noqonaya oo sida uga jawaabnay wallahu a'lam waxa hadhay haday ku bedelato maxay haday khulciga haday tiraahdo ana warqadayda wax ku bedeshay lacagta haday tiraahdo muxuu ahay niyahow ifur dalqadihiina meherkaygii baan ku bedelanaya khuluc baa la yiraahdaa way la samayn karaa sida hadduu ku furo oo ku meherkii ay sida ku cafido way ku furmaysaa khuluc baa la yiraahdaa waliba talqa baa'ina waa sida hadduu ninku islaanta ku furo bimacna waxa way kuma noqon karo rajactu ka socon mayso hal dalqada waxay noqonaysaa ay ku fasaxmayso oo soo ceshan kareen haddii marka sida lagu furo meherkiina uu ninkii uu san bixinin ee sida ugu cafiyo oo dalqadihii dhaafsato xoolahaasi baaqday yaa lagu leeyahay sakadoodii hore haddii la zaka lagu leeyahay jawaabtu waxa weeye intaan heshiiskani dhicin ciddii xoolaha iska lahayd ayaa zakadoodii hore lagu leeyahay oo yaa waay ma ninka mise waa haweeneyda asaga markii uu la wareegay kadib milkiyadooda oo islaantii khuluc ku furay dahabkuna milkigiisa ku soo wareegay wixii ka dambeeyuu sanad tirsanaya wixii ka dambeeyuu sakeynaya hawl markuu soo wareego ayuu ka sakeynaya xoolahaasi markaas uu yeelanaya ama intii ka horeysay iyada iska lahayd xoolaha milkiyadooda isagay ku lahayd macna sidii wuxuu noqonayaa aan uga soo jawaabnay farqii hore wallahu a'lam جزاك الله خير بارك الله فيك سؤال استيلاتنا سائلك وحوليه هي شيخنا الله كعفيده وحنا هي درول تاكسي وتا
waxaa laga yaabaa mararka qaar in salaadu igu dhaafto jam ama saxmad aniga oo wadada ku galay sidaana ay salaad kale igu soo gasho marka maxaan ka sameeyaa sheekh salaadahaas jamka igu dhaafay salaadu haddii ay tahay salaad la dibdhigi karo oo ta ka dambaysa wakhtigeeda lala tukan karo adoo darawalow gaadhiga wadana jam aad gasho tukan kari weydo dib u dhig salaadaha la dibdhigi karo waa duhurka oo wakhtiga casarka lala tukan karo iyo maqribka oo dib loo dhigi karo oo salaada cishaha lala tukan karo hadday tahay salaadu salaad aan la dibdhigi karayn ta hore horta maxaa daliil u ah ta hore waxaa daliil u ah ruuxa muslimka hadday xaaja qabsato oo salaad walba wakhtigeedii inuu ku tukado ay ku adkaato xaraj uu galo salaadaha wuu jamcin karaa salaadaha la jamciyo ama jamcu taqdiim ama jamcu ta'khiir laana jamca iyo salaadahoo laysu geeyo oo mid wakhtigeeda laysugu geeyo waxaa keena safarna wuu keenaa sababta labaad ee keentana xaaja keento safarka garanayo axaadiisteedu waa mutawaatir laakiin xaaja hadday ruuxa qabsato inuu jamcin karo daliilkeedu waxa weeye xadiidka bukhaari iyo ay soo saareen iyo waxaan u jeedaa axmed iyo keyrka ay soo saareen ee rasuulku sal alla alay wasalam ibn cabbaas baa warinaya wuxuu leeyahay nebigu duhurka iyo casarka ayuu kulmiyey maqrib iyo cishana wuu kulmiyey magaalada madiine isagoo jooga roobna uusan jirin safarna uusan ahayn ibn cabbaas baa la weydiiyey waxaa la yidhi oo muxuu ula jeeday nebigu sal alla alay wasalam safarna ma aha roobna ma jiro muxuu u tukaday salaadaha isugu geeyey markaasaa ibn cabbaas wuxuu yidhi atawsicata calaa ummihi ama araada an laa yuxarija ummatahu ummaddiisa inuusan xidhiidhiyin oo u waasiciyuu nebigu rabay sal alla alay wasalam u jidaynay marka salaadaha haddaad waad isu geyni haddii aad ta hore muxuu ahaay uu xidhiidhi ku qabto hadday salaadu tahay salaad aan la dibdhigi karayn cishihii oo kaloo wakhtigiisu baxayo ama salaaddii casarkoo wakhtigeedii baxayo meel damboo loo riixa ma jirto moogta jaamna waad ku jirtaa gaadhi baad saaran tahay darawal adaa kaa wakhtigiina waa baxayaa meel aad usii riixdana male maxaad samayni markaa sidaa adigoo darawala tuko adoo darawaloo baabuurka wada tuko oo seen u tukani wixii la akhrin lahaa akhri ma garat ilaan carabkii afka laguma haystee allahu akbar dhe salaada gal faatixada akhri markii rukuucda aad joogto wax yar sidaa dhe adoo darawaloo wada attentionkaagu uusan lumin ma garat markaad sujuudayso wax yar ka hoos mari qibladu meeshay doonto ha aado ma garat ama xagga ha kaa marto ama xagga ha kaa marto tuko salaad wakhtigeedii galay meel loo sii dibrida ma jirto waxaa tilmaamaya xadiidkii ninkii la dhihi jiray saxaabigii cimraan binu xusayn ayaa daahirkiisa loo daliishan wasiir buu qabi jiray rasuulkan weydiiyey buu yihi salaada seen u tukadaa nebigu wuxuu ku yidhi salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa janbin taagni ku tuko haddaad kari weydo fadhiga ku tuko hadduu fadhigu suuroobi waayaan adoo dhinac u jiifa tuko haddii dhinac u jiifto kan darawalkee fadhiyasoo kama awlaysa ka jiifka ku tukanaya marka waxa weeyaan fattaquu llaha ma statactum karaankaaga intaad kari kartaad ku tukan salaadana ma dibdhigaysid wakhtigeeda kama saaraysid salaadda aad saa ku tukatayna soo celin maysid sidaasay sax ku tahay in sha allahu tacaala wallahu aclam jazaak allahu khayran wabaarak allahu fiik su-aasha 29aad saa'ilku waxuu leeyahay sheekh sida aan fiqiga shaaficiga kusoo qaadanay khudbadda jumcada waa in carabi lagu akhriyo oo luqad kale laguma akhrin karo sheekh marka arrintaas waan ku wareeray runtii waxaan rabaa in aad iga jaahil bixiso khudbadda tacliiqa ka horeeya se isagu ma bannaan yahay sax weeye madhabka shaaficiga ah khudbadda iyo xanaabilada iyo waxay dhahaan waa inay luqada carabiga tahay laakiin madaahibtu madhabka shaaficiga keliya ma aha madhabka xanafiga baa qaba in khudbada luqado kale lagu jeedin karo oo iyadoo dhan carabiga inta laga baxo
luqad kale lagu jeedin karo culimada hadda joogta intooda badanna way qabaan majaamicda fiqiga fataawida jamaaciga dadku haddayna luqadda carabiga garanaynin luqaday garanayaan in loogu khudbeeyo oo madhabka xanafiga bay rajaxayaan madhabka shaaficiga usuushiisa marka dib loogu noqdana wuu tilmaamayaa waa laga qaadan karaa xaaladda ay adkaato inay dadku fahmaan carabiga ama ay akhrin kari waayaan in luqad ay garanayaan loogu akhriyaan ama loogu akhriyo maalan ruux hadduu faataxada akhrin kari waayo luqadda uu garanayo ku akhrinaya inta uu ka baranayo ma garat dikrigii nebigu wax lagu bedelay yidhi hadduu ku keeni waayo carabiga luqaduu garanayo ku akhrinayaa inta uu ka baranayo imaamu shaafici caleyh raxmatullahi waa ka si cad ugu sheegay marka wax khudbada ka muhiimsan ayay shaaficiyadu qabaan in haddii maslaxadu ay keento in laga guuri karo carabiga oo loo guuri karo muxuu ahay luqadda kale loo guuri karay masalada kale waxay tahay khudbada sideeda maxaa loogu talagalay khudbada maxaa loogu talagalay ma cibaado uun sida salaada oo kaleeta ah oo tuka uun iska tag miya mise khudbada waxaa loogu talagalay waa isu imaad loogu talagalay usbuuciiba mar muslimiinta in lagu baraarujiyo waa arrimahooda laga hadlo oo lagu wacyigeliyo soo saas maa ayib muslimiintii haddayna maantanan carabigaad jajabinaysa eed akhrinaysa ayna xabad ka garanaynin nusa sac baad haysataa oo ku hor fadhiyaan hal xabo faa'iidaana kaala bayna tegin in alxamdu lilaahi baad ku haysaa xabadna kamayna garan dadka miyaad u khudbaysa maxaad u faa'iidaysay maqsuudkii iyo muhiimaddii khudbadu ay lahayd baa waxaad u ilaalisay calashaani inaad luqad carabi ilaaliso xuruuf iyo kelimaad carabi aad ilaalisay maqsuudkii khudbadoo dhanna waad lumisay marka maxay samaynaysaa ilaahay rususha wuxuu u diri jiray rasuul kasta sida suuratu ibraahim ilaahay ku sheegay rasuul kasta marka la dirayo bilisaani qowmi baa lagu diri jiray si wax looga fahmo dadku u fahmaan sidaas daraaddeed fahamkaa asala dadka wax fahansiiye haddii aad carabiga akhrin karto turjumi kartana carabiga turjum oo dadka wax fahansiiyo waxa la tagaan haddaad isku dari karto carabigii iyo luqaddii kalena isku dar haddaadan isku dari karayninna luqadda ay dadku fahmayaan wax ku fahansiiye waxa la tagaan laakiin kelimaad baan ilaalinahayaa oon ku dheganaanahayaa madhabkaa yidhi waa ku dheganaanayna maqsuudkii khudbadoo dhanna waa luminaynaa ma aha maqaasida shareecada saas daraaddeed masaladaasi waxay u xoog badan tahay dadku haddayna luqada carabiga garanaynin waxaa xoog badan madhabka xanafiyada maqsuudka shareecadana isagaa waafaqsan wallahu aclam جزاك الله خيرا وبارك الله فيك شيخ إلهي سبحانه وتعالى كابال مريو سؤالها سوسة في عن فحسن وينوجد جوابي ولي مرة ما عندنا سؤالها قرشه هاين لقارو لكن وقت جيبها كداعي وحنا نسوق قاري سؤالها دي هذا ترى بدن في الليلة بقول يدوري عفرت إني هين ترى دودو شلي يمانت والله قصوا كانت دري دافع عالم كودن maraykan iyo yurub iyo asia iyo africa meelaheeda wadamadeeda kala duwanba deegaanada soomaalida waxba usii badnaadaan marka waxaan nidhi xoogaa bal ha lagu daro waktigii si dadkaas inaga maqan aynu u siino janis sababta iyagu sheekha inay helaan aad bay u adag tahay dadkeena masjidka gudihiisa jooga waxaa laga yaabaa inaynu si fudfudud isaga heli karno sheekha marka waqtigii markaa bal insha allah xalaqaadka dambe baynu sheekha waqtiyo laydin siin doonaa su-aalo furan insha allahu tacaala sidoo kale qofkii duruuf aad ah u qaba su-aashiisana si khaasuu sheekha insha allahu uu u arki karaa gaar ahaan meeshuu ku tukadoo kale uu kala tukan karaa salaadaha kala duwan oo dhan usbuuc oo dhan xilligii uu u baahdo marka inagu maadaama aynu ahlu masjidkii nahay soomaalidu waxay tahay caanaha ninkii ka qadi karaa laga qadiyaa inagu aynu iska qadno dadka kalena aynu jaaniska aynu siino aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu calaykum asalaam